libaaxa iyo shabeelku waa kuwa ka mid ah boqortooyada xayawaanka gaar ahaan kuwa beriga waxayna ka sii tirsan yihiin qoyska bisadda. waa laba xayawaan oo aad u khatar badan isla markaana awoodoodu isku dhowdahay. wuxuuna muuqaalkan isbarbardhig ku sameyn doonaa labada xayawaan ee ugu waaweyn marka si guud loo eego shanta bisadood ee waaweyn kana mid ah qoyska bisadda. shabeelka iyo libaaxa waa kuwa aan lahayn wax ayaga ugaarsada marka la eego hardanka ka dhex jira duurjoogta, waxayna ka wada tirsan yihiin qoyska cilmi ahaan la yiraahdo Felidae, waxayna sidoo kale ka sii wada tirsan yihiin naasleyda. labadooduna cunto ahaan waa carnivore ama hilib cunayaal. muuqaal ahaan farqiga u dhaxeeya waa mid aan wada ognahay, waxaana ka mid ah xariiqmaha madow oo uu shabeelku leeyahay iyo bulbusha libaaxa. mar walba ay sii madoobaata bulbusha libaaxana waxay ka dhigan tahay inuu sii daqoobayo. shabeelka iyo libaaxa waxaa dheer oo culeys badan shabeelka. libaaxu waa midka labaad ee ugu weyn qoyska bisadda, halka shabeelku yahay midka ugu weyn muuqaal ahaan. libaaxii ugu weynaa ee la diiwaan geliyey waxaa la ogaaday 1959kii, culeyskiisuna wuxuu noqday 375 kilogaram. dhanka kale sida caadiga ah shabeelka ugu weyn waa midka Siberianka ah, wuxuuna culeyskiisu ka badan yahay 400 kilogaram. libaaxa waa mid nasta 20 saacadood maalintii, halka shabeelkuna istareexo 18 saacadood. laakiin shabeelku waa mid naftiisa ku tiirsan oo kolka uu ugaarsanayo kaligiisa ayaa howlgala. libaaxyadu waxay u nool yihiin koox oo lagu magacaabo raxan. raxan kastana waxay ka kooban tahay 15 libaax, marmarka qaarna waxay gaaraan 30 oo kala ah 3 aar, goolo kala duwan oo tiro badan iyo dhashooda. tirada raxanta ah wadajoogoodu waxaa go'aamiya helitaanka cuntada iyo biyaha. haddii labadaasi ay gabaabsi noqdaanna waxaa raxanta dhexdeeda ka abuurma dagaal sokeeye. libaaxa dhadig ama goosha ayaana ah ugaarsadaha rasmiga ah ee raxanta. habab kala duwan ayay libaaxyadu u ugaarsadaan, sida kamiin ama jidgooyo in la sameeyo iyo in la hareereeyo noolaha lagu weliimeysan rabo. goolaha tamarta daran iyo dhasha laba jirka ahi waxay ka weerar tagaan dhaxda, halka kuwa halista ahna ay ka howlgalaan hareeraha. laakiin shabeelku sidaasi ma ahan oo kaligiisa ayuu duulaan tagaa ama ugaarsi tagaa. libaaxu inta badan wuxuu ugaarsadaa lo'gisida, dameer farowga, biciidka, garnuugta, cawsha iyo deerada. laakiin shabeelku intaasi waxaa u sii dheer oo uu diiradda sii saaraa sida kalluunka ama malayga, shimbiraha, daanyeerada, yaxaaska iyo xitaa maroodiga yar. wuxuuna sidoo kale mararka qaar ugaarsadaa dubka iyo haramcadka. cunto ahaan libaaxu wuxuu u baahan yahay celcelis ahaan 4 ilaa 27 kilogaram oo hiliba, halka shabeelku u baahan yahay halkii waqti 40 kilogaram. tijaabo ay sameysay National Geographic ayaa waxaa lagu ogaaday in shabeelku qaniyadiisu xoogan tahay marka la barbar dhigo libaaxa. haddaan eegnana dhanka xawaaraha, libaaxu wuxuu jari karaa halkii saac masaafo dhan 80 kilomitir, waana xayawaanka labaad ee ugu dheereeya xayawaanada beriga, waxaana ka dheereeya oo keliya haramcadka. marka laga hadlayo xawaaraha shabeelkuna waa mid aad u dambeeya, waxayna kuwa waaweyn jari karaan 49 ilaa 65 kilomitir saacaddii. cabirka maskaxdooda marka la eegase, libaaxu waa midka labaad ee ugu maskaxda ballaaran qoyska bisadda, halka shabeelku yahay midka koowaad. maskaxda shabeelka waa mid si degdeg ah u qaangaarta, wuxuuna cabir ahaan shabeelku ka maskax weyn yahay libaaxa 25%. haddii ay isqabtaan oo ay hardamaan shabeel iyo libaax, midka ugu horeeya ee dib u gurashada sameynaya waa shabeelka. laakiin taasi ma ahan cabsi ee waa qorshe dagaal, oo waxaa la sheegaa in shabeelku isdareensiiyo in arrinka lagu dagaalamayo uusan ahayn mid u qalma dagaal iyo juhdi badan. laakiin maskaxda libaaxu xisaabtaasi ma taqaano oo waa mid leh dareen dagaal, waana taas sababta uusan isku dhiibin libaaxa geesiga iyo boqorka keentana loogu yeero. waxaana hubaal ah in libaaxu ka geesisan yahay had iyo jeeraale shabeelka. tirada ugu badan ee libaaxa waxaa laga helaa qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada ka hooseeya saxaraha, wuxuuna ku nool yahay dhul cooseedka iyo dhulka bannaan. qarnigii tagay tirada libaaxyada duurjoogta ah ee Afrika waxay gaarayeen 200,000, laakiin maanta waa 20,000, kuwaasoo ku sugan 26 dal oo Afrikaan ah. dhanka kale shabeelku wuxuu ku badan yahay India, Bangladesh, koonfurta bari iyo bariga Aasiya,
wuxuuna ku nool yahay keymaha kulul, keymaha wada cagaaran ama dhulka ay ka baxaan geedaha waaweyn ee alwaaxda laga soo saaro. wuxuuna shabeelku ka mid yahay xayawaanada laga baqayo inay dabar go'aan maadaama tiradiisu ka yar tahay 4,000, waxayna intooda badan laga helaa 40,000 dhulka Hindiya. wuxuuna libaaxu inta badan noolaadaa 10 ilaa 14 sano, halka shabeelkuna uu noolaado 16 ilaa 18 sano. wayna ku kala duwan yihiin xagga da'da dhimashada, kuwa duurjoogta ah iyo kuwa lagu hayo beerta xayawaanada.